kusoo dhaweynayna dugsigan sare ee Qalax ujeedadu waxa weeyaan ardayda ciriiriga ku jirta ee galaasyada ka muuqda ee wasaaraddu aragtay baahidaasi ay ka soo jawaabeen oo ay rabaan in lagu kala fududeeyo haddii Ilaahay yiraahdo 6 galaas oo emergency ah insha Allah waxa leeyahay kusoo dhawaada waan kusoo dhaweynaynaa ardaydana waxaan rajaynaynaa inay galaasyadaasi wax badan ka bedeli doonaan culayskii galaas ahaan ka jiray ee ciriiriga keenayay inay ku kala fududaan doonaan haddii markii aan imi gobolka ee gudoomiyenimada la soo magacaabay wixii ugu horeeyay ee damqay waxay ahaayeen caruurta iskuulka fasalada siiba kuwa foorka hablaha oo hadda gasho adiyaabayso marka way ku mahadsantahay wasaaradda waxbarashada agaasimaha guud iyo wasiir ku-xigeenku sida fiican ee quruxda badan ay dadaalka uga soo jawaabeen waxaan maanta halkan u taaganahay inaan ballaarino dugsigii sare ee Qalax oo overcrowded ahaa ardaydu istul fadhiyeen runtii u baahnaa gacantan maanta aynu fidinayno iyo mid ka ballaaranba waxaan rajaynaynaa 6 class ee maanta la dhagax dhigayaa inay wax ka tari doonaan baahii iskuulkan qabay iskuulka farsamada gacantana sidii ma ogtahay marka hore baan u dhisnay ee qorshuhu ahaa in dhalinyarta looga faa'iideeyo la dardar geliyo aad baan u rajaynaynay waxaan sugaynay waxa ahayd gacantii wasaaradda waxbarashada waan idinka mahad celinaynaa runtii inaad maanta diyaar u tihiin inaad iskuulkii dhaqaajisaan sidoo kalena baahidan degdeg ee Qalax ka soo baxday iyo saad uga jawaabtay waa idinka mahad celinaynaa inuu biyo-wasiirantaas ahayd culays badan iyo dhib badan gobolka iyo deegaanka iyo degmada way ku haysay si guud waxaan idinka mahad celinaynaa runtii jawaabta degdega ah aad wasaaradda ahaan ka soo jawaabteen dawladnimaduna waa intaas in shacabku baahidooda la asturo oo markiiba la dhammaystiro waxay u baahan yihiin aad baan wasaaradda waxbarashada iyo sayniska aan si gaar ugu mahad celinayn runtii jawaabta degdega ah iyo baahida degdega ay ka soo jawaabtay insha Allah waxyaabaha kale ee step baan u soo qaadi doonaa wasaaradda waxbarashadu waxay mas'uul ka tahay dhammaan xuquuqda muwaadiniinta reer Somaliland ee wax baranaya inay helaan meel wax ku bartaan inay helaan beecad wax ku baran karaan oo informatiga wax ku baranay deegaanka u saamixi karo macallimiintii wax baraysay iyo goobta waxbarashada lafteeda halkan culays badan baa saaran iskuulkan Qalax isbedelada waxbarashada dhacaya ka mid tahay iskuulada dawladda ardaydu kordhiso isla markaana waxaa waajib nagu inaan ka jawaabno iskuulkan oo culays badan saaran yahay arday badan ay dhigato oo galaaska ay dhiganayaan 100 arday ku dhow taasina ay ka soo horjeedo dhammaan shuruucaha waxbarashada ee wasaaradda qorshaysan annagoo ka duulayna xuquuqda ay leeyihiin maanta waxaan dhagax dhigaynaa 6 class oo ku soo kordhin doono iskuulka kan Qalax maanta joogno si ay ardayda culayskooda uga yaraado isla markaana ardayda dambe imanaysa ay u helaan goobaha wax ku bartaan taasina waa horumarka waxbarashada inuu dalku ku jiro